magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxa haatan ku sugan fanaanka Soomaaliyeed Axmed Maxamed Rasta fanaanka ayaa nagu soo booqday studio BBC ee magaalada Nairobi Suhayba Badqas ayuu u warramay waxayna ugu horeyntii weydiisay waxa uu yimid Kenya waxaan u imaaday show inaan ku qabto soona booqdo dhulkii hooyo ilaa Soomaaliya raba inaan gaaro wallahi dhulka waan u xiisay inaan soo fiiraan raba muddo dheer ay ugu dambeysay 1992 soo soo baxay waaye marka inaan soo arkan aad aan u jeclahay ma waxa tahay qof fanka ku cusub maxaa kugu qaaday markii hore horta wax aan iska jeclaaday ahayd fanka oo hobigaygu iska ahaa ilaa muddo dheer anigoo high school dhiganayo ayaan jeclaadayna waxaan ku soo galay fanka musician ahaan maaragtay keyboardka inaan iska garaacaan iska jeclaa 1998 kii ayaan hadana bilaabay inaan keyboardka iska garaaco 2001 ka maray ahayd ayaan ka bacday waxaan bilaabay inaan heeso magaalo waxaan deganaa badanaa fanaaniin aan joogin oo Kansas City Mareykan ku taalo keyboardkiisa oo garaacay anigu baad hadana wax soo noqday fanaan inaan isku heeso ka bacday sidaba igu bilaabatay inaan aroosadana ka heeso baadiyashana aan ka heeso heestaada ugu horeysay goorma soo saartay waxaa soo saaray 2011 bal haddii aad wax yarna maqashiiso miraha boqoradii nafta waxaa iskale abwaan cabdi xarigle kulluqaynteeda waxay ahayd naftan ku bugtay baxsanay tarata bogsan weyday awga heestan ma adigay ka hadlaysa ku dhaada mise abwaanka ayaa kula yimid oo ku yiri ku luqay asaga ay la imaaday hees diyaarsan bay ahayd oo macnaha oo yiri hore baan u suubiyay kulli asaga sheekadiisa yaqaan soo suubiyay anuu igu doonsiyay maadaama uu abwaan aan saaxiibana ahayn iskuna dhaweyn marka sidii uu igu doonsiyay ayay ka bacdina heesa kala badan ayaad soo saartay heesa badan oo waxa soo gaaray aad u badan bal hadda ka waran marka aad fiiriso fanaaniintii hore iyo fanaaniintan cusub adigu maxay kula tahay ma wax isbedel ayaa yimid waa sidee hadda heerka fanaanimo wallahi aan ahaantayda isbedel weyn ayaa imaaday fanka because dadka hore iyo dadka dambe generationka ayaa wuxuu kala yahay macnaha maalinta ka dambaysa wax cusub soo baxo dadka hore dad horta khibrad leh bay ahaayeen abwaaniin bay haysteen fanaaniinta hore oo khibrad leh laakiin fanka hadda maanta wuxuu yahay meeshaad ka soo gaartaa ka qabsanaysaa lama kala sooco fanaaniin fiican waa jiraan oo heesa badan oo abwaaniin fiican soo biya nasiib u helo fanaaniin aan nasiib aan helin waa jirtaa oo maaragtay heesa fiican aan wali la siinin marka isbedel waa ilaa yaana fanka isbedel ku yimaado dabcan dhinaca ma taqana qalabka laakiin soo ma moodid sidii hore awal hore maadaama meel badan la soo mari jiray markaad fanka aad soo galayso oo tayadaada la fiirin jiray hadda soo la isma oran karo imtixaan male wax kala soocana male waa meeshaad ka soo gasho marka Soomaalideena waa disaaska hadda ka waran bal heesta la yiraahdo dardaaran bal maxay ahay waa hees aroos ah waxa u soo banay gabar fanaanad ah magaceeda la yiraahdo Farxiye Kabeere arooskeedii aan loo soo biyay dardaaran waxa soo biyay abwaan Maxamed Burhaan
magaca dardaaran wuxuu ku socdaa macnaha dardaaran labada dhinac ma aan dardaarmayo waaye gabadha iyo wiilkiisa aroosaa bal ka waran haddii aad iyaduna wax yar naga maqashiisa ruux kula dado kula diinaba dugsi laga dhigtaa ruux kula dado kula diinaba dugsi laga dhigtaa ruux kula dado kula diinaba dugsi laga dhigtaa أحمد محمد أحمد رسته صهيب بدقس أيو ورميي